Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamo walaalaha ku xiran YouTube channelkayga Guusha Nolosha. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay oo mar kale iyo video kale oo cusub. Sida ujeediin maanta waxaa idin wadaa baasadaas khatarta ah insha Allah. Haddii alla raali ka dhigo marka soo dhawaada channelka hadaa ku cusub tahay waxaa kaa codsanaya inaad subscribe ii saarto hadaa hore iila joogi jirtana aad iyo aad u mahadsan tahay. La joogista ila joogto waa kaaga mahadcelinaya. Baasta al forno aan karsanayna marka soo dhawaada. waa ujeediin walaalahayga jiiskii iyo whipping cream halkaas i yaalo digaaga shafka basashaan soo jarjaray iyo kamsar caleen iyo baastadii biyihii dabka noo saaran hadda aan ku shubeyna baastadan yar yarta ah ilmaha yarka hadda cuno barad ku yahan wuu ku cuni karaa waa siisan kartaa oo waxaa waaye ma weyn ma fahanteen waa yaryar tahay marka maasha Allah tabaarakallah aad caruurta u jecel yihiin marka ku dadaal haduu ilaahay raali ka dhigo yaa insha Allah waa ujeediin saliid ayaan ku shubay digsiga basasha ayaan hadda ku darayaa xoogaa saliid iyo basasha isku karinaya kadib aan ku daraa haduu ilaahay raali ka dhigo digaaga wax yar waa daboolayaa waa usoo laabaneynaa waa kaas waxaan ku daraa hadda digaaga shafkii waaye oo digaaga ah waa aan ku shubay sida ujeediin hadda channelka hadaa ku cusub tahay oo yaa marka kuugu horeysa oo aragta channelkayga please subscribe ii saar yaa sheekooyinka socod waa maqlaysiin oo maleena Allah sahlo waaye ilaahay ha fududeeyo marka waa idinkaas ah asxaabta qaaliga ah waxaa idinku ogaanaa subscribe ka saartiin waxaa ku daray filfil waxaan ku darayaa maraq digaag hal mar aan wixeeda jab ku siinaa daboolka dhab ku siinaa waa u sugayaa insha Allah waa isku karaysaa markay isku karto waxaan ku daray kaarigaas aan ku darayaa xawaash kaariga suugada way karta walaalaha qaaliga ah waxaan ku daray hadda whipping creamkii ama slagroomka ayaan ku shubaa hadda dabka hadda waxaa ii saaran saliid yar ayaan dab kusoo shubtay waxaan rabaa inaan suubsado Allahu musta'aan magaceedii ay soo xasuusinayeen ilaawa magaceedii laakiin calaayta xaal baasada rabaa inaan korka ugu daro hadduu ilaahay raali ka dhigo waa arki doontiisa ugu daraayo magaceedii wuu ii gambiyey dibadaan kasoo xasuusto waa kaasa sidaas u kasaa ujeediin bur yar aan ku shubay waxaan ku darayaa caano ayaan ku qasayaa marka caanaha ku qaso was dhexgeliyo kulli ayaa isku soo noqonaynaa insha Allah waa kana waa isoo dhexgeliyay si nadiif ah kamsarta ayaa hadda ku shubay waxaan soo qaatay weelka aan u talagalay aan ku gelinayo foornada waxaan dhexda u dhigayaa suugadii aan kariyay ayaan dhexda u dhigayaa kadib waxaan ku shubayaa baastadii kadib saasaan iskula ekaysiinaa waa qarinayaa suugada hoose waxaan rabaa marka inaan si dabaq aan isku kor saaro insha Allah suugadan ku shubaa haddana sooska kale aan karinayo aan ku shubayaa kadib jiisa aan ku shubaa way ahayd ma fahanteen alaabtan caadi ma ahayn walaalahayga marka foornada gelinaynaa waa isku soo laabaneynaa insha Allah waa kana walaalahayga anoo diyaariyay waa ujeediin sidaan ay kusoo baxda quruxda badan saxanka ayaan saaranay ansalaatadeeni basbaaskeeni maasha Allah tabaarakallah ma laga hadli karin asxaabta qaaliga ah hadda halkaas ugu soo baxo videoga yaraa idin tusinayay saa u karinayay baastada alforno baasta alforno dawaa idinkaasa asxaabtayda hadda weelkaas waxaa iigu jiro walaalahayga biyaan ku shubay waxaan ku darayaa qalka ayaan ku darayaa meesha waxaan rabaa inaan ku dhaqo hadduu ilaahay raali ka dhigo qudaar rabaa inaan ku dhaqo qudaarta jeermis ay leedahay walaalahayga waa arki doontiin
markii aa weelka saana ugu shubtid oo la dhigtid oo wax yar 5 daqiiqo camal ama 3 daqiiqo camal aa u sugtid waxa dhan aan ku dhahay qudaarta bismillaah waxay wasaq ay haysto waa yaabaysid madoobaadaan ku dhahay weelka dhan wuu isbedelay biyaha u jeediin way isbedelayaan marka waa kaasaa tartiiba sidaas maxaa la dhahaa xabad xabad ugu dhaqaa baamiyaha aad u fiican yahay baamiyaha la badsado laalaabyada u fiican yahay baamiyaha ma fahanteen qaboobaha siiba qaboobaha haddii la joogo waxaa waaye jirkaaga wuu u baahan yahay marka dharka baamiyaha dukaamada carabta way gadaan oo suuqyada santarumyada ku yaalo haddii aada baabarfeyg iyo meelahaas waaweyn aada gaarin maasha allah waa kasoo bixiyey marka qudaarta walaaliheysa ujeediin hadda waxaan ku shubayaa marka cambe ayaa rabaa inaan ku shubo adeegan waxaa kasoo gada baabarfeyg subxaan allah wallaahi bilaahi waxa inaad duubo ama mobeelka iskaga haysanaa ma fahantiin ani ilaan waxaa waay mataqaaniin dee idinka weji fiican meesha kuma haysiin soo maaha weji fiican oo niigula hor imaado meesha nooguma haysiin marka wixii hamina wuu nahayaayo qalbiga waa ka haynaa laakiin haddane markaa wixii duubno yaaqay maxaa iskugu dhajinayo oo u raadinay fiidiyowga yaaqay oo waxaa waaye maba la daawanayo kuwile kaa horeeya ma aragtay aa isdhehaysaa marka caajiska naga qaada caajiska naga qaada insha allah hadduu ilaahay raalli ka dhigo waana mahadsantihiin wallaahi walaalo qurux badan aa i daawado waa idinkaga mahad celinayaa laakiin waxaa waaye sida la rabo ma ahan ma fahantiin meeshaan waa aragteen sida loo marwey subscribe-ka dhibaatada dhacoosa buuqa dhacooya problem ku socdo yaa khayrka allaha keeno ma fahantiin marka dadkuna waa wada xaasidiin tii shala aa isku meel joogteen xataa markay wax yar korka u qaado sankay waxay ka siineen nig maba ku taqaanabo ma fahanteen marka waxaa waaye wax walbana idinkaa dadka badaysiin in qof walbaba oo qofta kale ay raadiso naag asaagaaga inaa aad wax ii suubi aa dhahdid iyo waxaa waaye waxa dadka gaarsiinayo waa idinka haddaa idinka aa dadka markay subscribe-ka ii saarani dhahaan subscribe u saari laheedeen qof tuugta maba la arki laheenba qof walba waxaa waaye daduu haysan lahaa ma fahantiin maasha allah tabaarakallah marka fiidiyoyadan hadda aan isku keenayo waa fiidiyowi aan laba mar kala duuba waa fahanteen oo maleynaa insha allah marka haniila soo xiiso haniila soo ordee yaa wixii lahaay haniila keene caadi ha iska dhiga subscribe-ka noo saara caadi ha la iska dhigo naagayaalaha xataa naagayaalo oo xaasidiina ku jiro ma fahantiin marka caadi ha la iska dhigo dadka intay dadka tuugi lahaayeen dadka tuugmadaha laga dhaafo idinka dadka heer gaarsiiya shacabkana daawado heer gaarsiiya idinka dadka ha u jibinina waa fahanteena u maleynaa naagaha xataa waxaa waaye waxaa dhaha maaqaan ma fahanteen naagayaalaha caanayaasha naagaha oo caanka naaga fiican maahan ayaga xataa waa naaga xaasidiin lafaha iyo dhuxurka ka gashay tii ku taqaanaaba ugu daran taan ku aqoonin waxaa waaye wayba kasii xag jirtaa waa fahanteena u maleynaa taa shal isla garab aheedeen waxaa waaye maba ku taqaanaba geesgeesa ku fiirinaysaa markay wax yar ku moodo marka fridge-ki waa kaasaa sidaasaan qudaarta ugu soo raseenay saas quruxda badanaa isu hagaajinay marka qof walaalkiisa kama maarmo wuu u baahan yahay qof walaalkiisa inuu caawiyo laakiin inay wax ismoodaan inay kaa fiican yihiin ismoodaan ayaa adduunyada u daran ma fahanteen marka subscribe-ka dadka ha loo saaro Soomaali Maxamed marka dadka subscribe-ka loo saaro walaalaha u baahan oo anigaan ka mid ahay ha loo saaro subscribe-ka cadow dadka u jibin fiidiyowga intaas kaga soo noqonin waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu